formalizing a sister city agreement between the City of Mogadishu and City of St. Paul. waa golaha deegaanka ee magaalada St. Paul oo ka kooban 7 qof waxay ansixiyeen dhammaantood shalay in magaaladooda lala mataaneeyo Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya. St. Paul waa caasimadda gobolka Minnesota waxaana ku nool dad ka badan 300,000 oo qof. waxaa degaan iyo ganacsiba ku leh Soomaalida Minnesota iyadoo golaha degaankana uu ka mid yahay Qaasim Buzuri oo wiil dhalinyaro oo Soomaaliya. mataaneyntan labada magaalo ayaa ku timid markii xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota ay ka codsadeen golaha deegaanka arrintan waxaana guddigan qaarkood sheegeen in ay arrintani soo socotay 4 sano ee la soo dhaafay. Thank you. Now we have St. Paul waxaa July 2015 lala mataaneeyay magaalada Djibouti shalayna Muqdisho. inkastoo tan loolan adag loo galay oo maalmo ay isu hayeen 2 magaalo oo Soomaaliya ka wada tirsan ayaa waxa aakhirkii goluhu u codeeyeen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho in lala mataaneeyo St. Paul. dadweynihii ka soo qayb galay mataaneyntan ayaan aragtidooda weydiiyey waxaana iigu jawaabeen magaaladan waa magaalo qadiim oo hore u soo jirtay marka labada magaalo markii la isku geeyo awoodooda aqoon isweydaarsiya laga sameyn karaa technology transfer waxa la dhahaa laga sameyn karaa iskaashi badan oo micnaheedu aan ahayn dhaqaale dad badan waxay ku confuse ku yihiin inay u maleeyaan markii sister city la helo inay dhaqaale iyo budget iyo waxaas oo dhan kuma jiraan laakiin waxa la kala faa'iideysanaa aqoonta waxa la kala faa'iideysanaa xirfado haddii caasimadii wadanka Soomaaliya oo sharaf iyo karaamo ay lahaato waxa sharaf iyo karaamo lahaanayo Soomaali weyn marka farxadda waxa waaye ummad 30 sano dib u dhacday soo noolaanshaheeda iyo dib u soo noqoshadeeda waa farxad weyn. alxamdulillaah rabbil caalamiin aan dhahno waaye magaalo madaxdii gobolka Minnesota oo Soomaalida ku badneed ayaa waxay mataana la noqotay caasimadii Soomaaliya. arrinta jaaliyad ahaan baan uga soo qayb galnay xafladaas maanta lagu mataanaynayo kaalintaan ku leenahayna waxa weeye inaan sii horumarino dadka waxa weeye say uga qayb qaadan lahaayeen wadankooda qalbigooda ku hayn lahaayeen meel walba horumar ka gaari karta in horumarkaasi waxa weeye jaaliyadu ay ka shaqeyso. wax maanta bilowday 4 sano aan dibadda ka wadnay oo dagaal aan u galnay qoraal la sameeynay oo city council kala shiraynay finalna waa ku guuleysanay. Muqdisho waa magaalo madaxdii Soomaaliya oo dhan ma ahan meel qabiil ama qoys loo tiirinayo. Raas Kambooni iyo Raas Casar inta dhaxaysana waa dalkanagii waxa waaye magaalo madaxda Muqdisho magaalo taariikh leh waaye magaalo hadda shalay la heli ma aha magaalo 1800 sano ama 2000 sano ka hor oo jirtay waaye magaaladan waxay ahaa jirtay weligeeda bandara la dhihi jiray magaalo madaxay ahaa jirtay asalka magaalo madaxay ahayd magaalaha kale oo rabaan intii sameeyaan mantaaneen oo St. Paul ama anywhere oo sameeyaan oo Soomaali ku sameeyaan magaaladaashaas kale goboleyaashaas kale waa goboleyaal Soomaali waa Soomaali soo aday ahaato Garowe aday ahaato Jalab aday ahaato Kismaayo aday ahaato Hargeysa kulli waa magaalayaal oo Soomaali iska leh waa Soomaali waa sameeynayna meel kasta waa la galeynaa duqa magaalada St. Paul Malvin Carter ayaa dibadda xafiiskiisa ugu soo baxay Soomaalidii damaashaadaysay wuxuuna ugu hambaliyay maalintan taariikhiga ah wuxuuna ka codsaday duqa caasimadda Muqdisho inuu booqasho ku yimaado St. Paul. I will certainly be sending correspondence to the mayor to invite the mayor to come and visit us here. Congratulations.